السلام عليكم saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa sida loo xaliyo cilada ah kood la'aanta Telegramka. Waxa suuragal ah in marar badan aad isku dayday inaad samaysato Telegram balse ku soo dhici waayay koodka. Ciladan ayaa ah cilad ay wada haysato inta badan dhalinta. Asaab badan ayaa soo weydiisay su'aasha ah koodka Telegramka ima soo dhacayo maxaan sameeyaa. halka asxaabta qaarna ay aaminsan yihiin misna ay rumaysan yihiinba inaan dib loo samaysan karin Telegramka haddii marba uu ka xirmo. haddaba dadka haysatay ciladan ayaan ka mid ahaa balse waxaan helay hal, sidaas darteed waxaan go'aansaday inaan muuqaal ahaan kaga hadlo halka aan qof waliba si gaar ah uga sheegi lahaa. haddii ay ku haysato cilada inaanay koodku soo dhicin, fadlan raac talaabooyinka soo socda. talaabada koowaad, la soo deg abka Telegramka. talaabada labaad, la soo deg mid ka mid ah VPN-ada aad isticmaasho sida Super VPN ama Turbo VPN. markaad la soo degtay kadib intaadan VPN-ka aadan ku xirin mobilkaaga, waxaad tagtaa settingska mobilkaaga, kadibna waxaad ka sii tagtaa applications ama apps meesha ay ku qoran tahay, kadibna waxaad ka sii doorataa ama aad ka dhex raadisaa Telegram aad ka dhex raadin doontaa. markaad Telegram aad ka dhex raadiso, taabo kadibna ka sii dooro storage meesha ay ku qoran tahay. markaad storage taabato kadib waxaad taabanaysaa halka ay ku qoran tahay clear cache ee ah dhanka midig, kadibna dib u soo laabo, waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay permissions isla Telegramka gudihiisa ah, kadibna ogolow dhammaan permissionada allowde. markaad allow dhahdid dhammaan permissionada, waxaan u sii gudbi doonaa stepka afraad ama talaabada afraad. talaabada afraad waxaad samayn doontaa soo furo VPN-ka aad la soo degtay, kadibna ku xir mobilkaaga, kana dooro mid ka mid ah wadamada Germany ama UK ama USA ama mid ka mid ah wadamada aan Afrikaanka ahayn, kuna xir mobilkaaga. markii uu connect uu ku dhaho VPN-ka mobilkaaga, waxaad u sii gudbi doontaa stepka shanaad oo ah inaad tagto Telegramka ama aad soo furto. stepka shanaad waa inaad tagtaa Telegramka kadibna aad soo furtaa. halka ay ku qoran tahay country waxaad ka dooran doontaa wadanka oo ah Soomaaliya. halka hoosena waxaad gelin doontaa nambarkaaga. halkan marka aad marayso, haddii lambarkaaga aad dhowr jeer hore uga celcelisay, fadlan geli lambar cusub oo aadan hore uga isticmaalin Telegramka ama aadan hore uga samaysan Telegram. haddii aad rabto inaad soo ceshato mid ka mid ah Telegramyadaadii horena, waxaad gelin doontaa lambarkaaga oo aadan dhowr jeer hore uga celcelin. hana qaban wicitaanka kuu soo dhici doona, in yar kadibna kood ayaa kuu soo dhici doona ama si automatic ayuu kuugu sii gudbin doonaa Telegramkaaga. haddii lambarka aad ka samaysanayso uu yahay lambar cusub, koodka ayuu si toos ah kuugu soo dhici doonaa, kadibna wuu ku sii gudbin doonaa. balse haddii lambarka aad gelisay uu yahay lambar horey uu kuugu furnaa Telegram, si automatic ayuu kuu sii gudbin doonaa. sidaad arkaysaan haddeertaan waxaan samaysanay Telegramkeenii hore ayaan soo ceshanay. waxaan rajaynayaa inaan isla fahnay. intaynu muuqaalka mid la mid aynu dib uga kulmi doono alla idankii. isma dhaafin.